Okay. And magacayga waxaa la yidhahdaa Fatxi magaalada Birmingham ayaan deganahay Ingiriiska waxaan doonayaa inaan la qaybsado Soomaalida mawduuc hadda waqtigan 4 sano hortay 3 sano hortay 2016kii 2017 2018 xoog loo maqlayay haddana waqti la yar galay laga yar aamusay oo 17 18 19 17 dhammaadkeeda 18 iyo 19 iyo 2020 wax badan laga hadal haddana imika bulshada ku soo badanaysa ayaan doonayaa inaan bal waxaan ka garanayo inaan la qaybsado oo ah Bitcoin horta anigu bit of presentation inaan iska siiyo aniga Fatxi sidaan ii sheega la yidhaahdaa waxaan ahay engineer IBM ayaan u shaqeynayay ilaa iyo bishii February bishiina soo dhaaftay linkin halkan baad ka arki kartiin oo raadi kartid search the service sameysiin Fatxi Mikador you could see my background iyo jaamacadda markaan Middlesex 2002 aan dhameeyey Coventry 2010kii maraan ku yar noqday aan MSc yar sameeyey tan horteedna Faransiiskan kasoo dhigan jiray maths iyo physics meelaan kasoo shaqeeyey HMRC Metropolitan Police Bank of England oo u sameynay proof of concept DWP waa ugu dambeysay imika hopefully and xirfadeeduna waa just IT generally and company ugu dambeysay oo shaqeynaya imikana for the last 2.5 years IBM okay halkaa waa aniga okay one of the reason aan doonayo inaan Soomaali la qaybsado there is a lot of scams waxaa jirta tuugnimo badan dad badan oo isdhaca multi-level marketing pyramid schemes and forex ayaa midhow dadkii lagu dhici jiray OneCoin all these is the reason ay waxa Soomaalida ugu dhacdo is because dadka annagoo kala wax at least things moodaya inay wax yar garanayaan way ka gaabiyeen inay la qaybsadaan Soomaalida what is a scam iyo waxa la isku dhici karo iyo waxa laga faa'iidi karo iyo waxa laga baran karo ugu yaraan haddaad macal waxba ka faa'iideen inaad wax ka baratidba yaaba faa'iidadooda so let's start the knowledge sharing channelku waxa weeyaan waa just exchange inaan isweydaarsanno and knowledge of knowledge waxaan garanayno isla qaybsano sidaan nasiibkuna dee markaa waxaa dhici karta in Soomaaliduna ay dadka soo koray dhalinyartu iyo dadka waaweynbaba inay la qabsadaan waxa adduunka ka jira iyo opportunity-yaasha ka jira iyo dhibaatooyinka ka jira in la qabsadaan okay ta ugu horeysa dadka doonaya inaan la sheegayo waxa weyn Bitcoin inaad baratid af Ingiriis haddaad yar akhrin kartid uma baahnid meel kale Bitcoin idea iyo maskaxdan waxaa keenay nin la yiraahdo Satoshi Nakamoto nin buu noqon karaa naag buu noqon karaa jumac group bay noqon kartaa dad isku tagay lama garanayo laakiin 98 iyo idea uu soo bandhigay halka ugu horeysa horta Google waxaad ku qortiin Bitcoin white paper kaasi marka ku qortiin waxaa nii soo
white paperka pageka ugu horeeyaba taabatiinbaba waxaynu soo bixi white paperka waa kan fikradda sida loo sameeyey halkay ka timid ninka qoray emailka haddaad dursi emailka ma shaqeynayo idada ku dhalisayna waaba intaaba abstractida akhrisiin bacdeenina waaba sagaal page sagaal page waa adu 8 page reference marka laga reebo intaasaa doonaysaa inaabad akhridba ujeedada bitcoin sida loo sameeyey technically haddaad doonaysid ma inaad boqolkiiba adduunka boqolkiiba 90 inaad ka fikir fiicnaatid amba ka garasho fiicnaatid wuxuu bitcoin yahay haddaad akhridid 8 page ugu yaraan boqolkiiba 90 adduunka dadka ku nool waa dhaantaa marka waa ta ugu horeysa aan dadkana la sheegariyaan doonayo just go and read the white paper waa kow qofku hadduuna halkaana intaa taa akhrin inuu meel kale u gudbinba ujeedada waxa blockchain la yidhaahdo iyo bitcoin halkaasay ka timid blockchainna waxa weyn waa transactions la sameeyo iyo transaction kale la samayn doono block transaction kale la sameeyo block baa lagu ridayaa and the next transaction soo socotana block kale transactionkii hore loo sameyna waa block kale marka blockyaashaas si la iskugu xidho iyay noqotaa chain marka waa blockchain idda halkaasay ka timid and how to make a blockchain and hashka and proof of work wuxuu yahay lambar la raadiyo oo la yidhahdo nonce computation la sameeyo waxoo dhanbaba iddo dhanbaba 8 page bay ku taallaa waa halkaad ka bilaabaysiin okay halkaasi waxa weeyaan waa the first recommendation the second recommendation talada labaad qofkii doonaya inuu boqol gini konton gini uu gato $100 $50 kuwii ka lacag kada haysta ay iibsadaan dhowr meelood exchange waxa dhaha meel lagu kala iibsado waa inaad iska registraysid ka iibsatid marka kuwa labada ugu muhiimsan haddayna saddex ahayn aduu labada ugu muhiimsan anigu aan Soomaali la qaybsanayo ta ugu horeysa waxa weeyaan waa say u kala weyn yihiin berigoor waa laga tan baa imika ugu weyn Binance marka dee Google maad ku qoraysa haddaad doonaysid Binance register as registrani markaas registraysid telefonada haysatid halkaasaad ka iibsani marketka ka ugu horeeya waana idin soo sheegay waa Binance ka labaad waa Coinbase was get started by taabanaysiin waa is registraynaysiin بعدين you sign in and waad iibsani imika bitcoin wuxuu ku leeyahay xabadiiba waa 40,000 iyo socotaa hal bitcoin ma iibsanaysid maba goyn badankiina Soomaali laakiin waxay gadayaan $10 $50 $80 halkan baa aad ka gadan kartaa ujeedo laakiin muhiimadu waxa weyn haddaad $40 $20 iibsid aad iibsatid oo fiigii amba intii khidmadii lagu sameynayay laga qaado $5 amba $6 $20 markaad bixisid $6na transaction fiigii laga qaado amba khidmadii waxaad markaad bixisay totalka su geysid $6 amba £6 waxa u dhigma haddaad bixisid suuqana waxaad gelisay waa $20 marka waxaad sugi ilaa iyo intay 26
aad gelisa kuu soo noqoysa iyo 6 kale oo haddaad iibinaysa haddana 6 kale oo transaction laga qaadi doono waxay noqonaysaa 32 geni waxaad sugi ilaa 32 geni wixii ka badnaata inaad macaad ka heshid muhiimaddu waxa weyn waa inaad ogaatid horta waxaad ujeedada iibsanaysid ma macaash baa ka rabta dad macaash ka rabtidna dee qiimahay ku xidhan tahay waxaad iibsanaysid iyo waqtigaad sugaysid taasina waa waxyaabo kaloo marka laga hadli karo laakiin ujeedda waxa weyn qofkii doonaya maaha inaad qof kale ka iibsatid amba saaxiibka amba qofaa garanay sidoo ku dhahda waan kaa iibinayaa waxa ka iibsan soomaalidu waa wada tuugiin baa wada noqonay waan wada been badan nahay laakiin halkaasi ka iibso labadan meel ay nii sheegay haddaad ka saddexaad waxaa oran karnaa Kraken anigu dee account kuma lihi laakiin waan maqlaa waa reliable waa lagu kalsoonaan karaa kanana waa create an account account samayn kartaa marka waxaan la qaybsaday waa second recommendation halka ka iibsan kartiin Bitcoin iyo cryptocurrency-da kale ee ku jira aad iibsan kartid waxaa jirta Ethereum, Litecoin umnama oranay Bitcoin kaasha iibsanina waxaan kan iyo xayraan sheyga saddexaad in la qaybsanayo halkeed ka arki kartaa qiimaha siduu u kaco siduu u dhaco siduu ahaan jiray cryptocurrency-go dhan laba meelood yaa muhiima laba site aad ka eegin kartiin ugu horeeya waxa weyn Coin Gecko baa lahaa aad ku qoraysiin Coin Gecko tegaysiin halkaa markaad tagtiin Coin Gecko wuxuu tusayaa inta cryptocurrency iminka adduunka ka jirta waa inta ugu muhiimsan dee marka waa door page marka boqol ah door page waa boqol xabadiiba boqol cryptocurrency hal page door page-na weyn marka waad xisaabtami kartaa ilaa iyo dhowr kun oo cryptocurrency baa jirta badankoodu waa been iyo khasaaro waa aniga sidaan experience ku haysto waxaa 300 ugu horeysa yaa dhici karta inay horta the Bitcoin iyo Ethereum iyo Binance economic sare u kacay iyo Polkadot oo imika mar dhaweyd bilaama iyo waa kuwa la hubo dhici karto ay u badan tahay inuu sii shaqayn doono kan lama iibsado kan waxa weyn waa stable coin weligeed la genigaan ku joogaya marka ku khasaaray kan waxa weyn waa $1 aad iibsaday dollar marka iibsatid $1 marka iibsatid berrina $1 ku baahanaya sanadka dambana $1 u baahanaya mana kacayo mana dhaadhacayo marka waxyaabaha ma garatay hadhow waa nin macdale casharada kale ku jiri doontaa wax la stable coin kuwan marka waxaan uga jeedaa haddaad doonaysa in iibsatiin muhiimaddu waa inta ugu horeysa cottonka ugu horeeya waa very strong waa inta ugu muhiimsan adu boqolka ugu horeeya haddaad doonaysid inaad wax kale isku daydina page-ka labaad ilaa 200 ka 200aad ilaa 200 waa isku dayi kartaan iibsatid okay kaasi waa recommendation-ka saddexaad okay markaad iibsanaysid imika number 8 iska dhaafo waxaan doonaynaa iibsado number 21 Terra waan taabsay waxyaaba ugu muhiimsan waxa weeyaan wuxuu ku siinayaa website-ka intana waa inta waxyaaba ugu muhiimsan inaad ogaatid market cap-ka coin-kan qiimihiisu inuu joogaa qiimihiisa maaha market cap waxa la moogtahay waxaa la yidhahdaa lacagtiisa marka laisku geeyo waa imisa waa 4 billion 24 saacadood ugu dambeysay waxaa la iswadaarsaday 561 million
يا الاسفيزي يا الكل بدشي سوق afar labaatan saac ugu dambeysay qiimaha ugu hooseysay lagu iibsaday waxaa $10 iyo 84 pence ka ugu badanna wuxuu ahaa $11 iyo 83 pence circulated supply imise xabadoodo kuwana yaa la sameeyey waxaa la sameeyey 958 million yaa la sameeyey oo xabo oo teray haddana suuqa waxaa la kala iibsanayaa 397 okay the difference inta u dhaxaysa meelaha 400 iyo xoogaga u dhaxeeya halkeen martay waxa haysta dadkii teeragan lahaa yaa haysta oo hadhow iyaguna oo suuqa soo gelin kara marka waxay ka dhigan tahay hadday soo geliyaan hoos buu u dhici karaa kolbas ay kusoo geliyaan bay iyo ku xirantahay okay halkee laga iibsanaya waxa weyn marketkaasa taabanaysa meesha la yidhaahdo tabka la yidhahdo markets kaasa taabanaysa ku sheegaya meelaha laga iibsanaya Binance waa kii aan ii sheegay haddeer oo suuqa exchange-ka iyo kuwo kale Bitcoin iyo kuwana aan ku lahayn waxba laakiin waa badanka Binance baad ka iibsan kartaa fahantay okay xabadda labaad ee hadday doonaysa inaad ka irtid waxa weyn coin market cap website-ka labaad aad ka eegi kartid inta iyaguna cryptocurrency jirta way isku eegyihiin ma arkaysid iyaguna waa page-kiiba 100 baan umaleeyaa page-kiiba 100 ilaa dhowr page buu leeyahay ilaa iyo 100 page malaha in ka badan marka intaasoo dhanna waa wada cryptocurrencies oo Bitcoin lagu safrayo Ethereum ku xigo Binance coin ku xigo halkan wuxuu ku tusayaa isku midkoon kan waa isku midkoon haddaan halkan taabsado isku midkoon wuxuu ku tusayaa toddobadii daxlo ku soo noqdo waxaan jecelahay coinkayna naga tuso saacaddii ugu dambeysay intaasuu kordhay 4 saac ugu dambeysay intaasuu kordhay 7 cisho ugu dambeysay intaasuu kordhay kan oo kale 7 cisho ugu dambeysay ilaa iyo 5% iyo hoos u dhacay kuwo kale waxaa jirta in badnaxna taabsado nicola saari ka ugu badan 200% buu kan kacay laakiin kan haddaan dib taabsado name coinka la yidhaahdo 23% buu kacay iyo dhacay kolkol suuqu wuxuu dhacaa 50%, 80%, adigoo lacag dhigtay 100 gini baad dhigatay 100 gini baad ku iibsatay coins isla ayaantaas wuxuu dhici kartaa wax 50% ka badan 50 gini iyaaba khasaaraysa markaasiba okay recommendation number 4 meesha waxaa dhici karta Soomaaliduna Twitter, Facebook waxa ka hadlaan I don't have a lot of friends saaxiibo badan ma lihi Facebooka kuwa kale ma isticmaalo Twitterka waa isticmaalaa Instagram waxaas ma garanayo ma isticmaalo laakiin waxaa dhici karta inay ku sheekaystaan Soomaali laakiin anu ma arag meeshan arkay Somali Sport waxa weeyaan waa website dad dhalinyaro badankood waa dhalinyaro aad bay iga yar yihiin xabad iska waaweyn baa jira ay qaybta la yiraahdo forumka qaybta la yiraahdo finance way ka sheekaystaan waxaa dhici karta waa recommendation number 4 in halkan timaadiin bal iska yar egeegtiin waxay ku hadlayaan bar badan waa iska gamblers baan u malayn oo waxay sameeyaan trading haween shaqadooda ayaantiiba waxbay kala bedishaan waxbay iibiyaan waxbay iibsadaan waxbana iibiyaan meesha dhexdeeda kuwaas way naga calul adag yihiin waana by nature waa dad khamaara anigu philosophy ku yar duwan yahay I'm more into investment waxa weeyaan waa long term sanad 2 sano 4 sano 5 sano 10 sano
sida markaad guri iibsanaysid maanta inta guri iibsatadana bacdor saacad guriga dib maad u iibinaysaa no guriga iibsanaysaa waad xajinaysaa sana marka korodho waad iibin kartaa amba waad kirayni anigu fikirkayga waa halkaas marka okay subject tradada ugu horeeya xabadda ugu horeysa kaasi waa cryptocurrency market ee ka sheekaysanaya marka eertay kartaa ereygay kartaa inama waxaa jirta iyagu garanaya waxay ka hadlayaan sida nimadan oo kale way garanayaan waxay ka hadlayaan marka yar akhrista waxay ka sheekeynayaan kani wuxuu leeyahay ilaa iyo bitcoin-ka wuxuu tegayaa 380 tegi doona marka iminka qofka iibsada could be iminka 1,000 dhigta waxaa dhici karta inuu ilaa iyo ka helo 2,000 4,000 5,000 ilaa 6,000 may marka la gaaro iska ruwaayad allahu aclam ma garanayno bay ku never know laakiin wakaa wuxuu ku leeyahay charts buu soo dhigtay waxana waa chart bala ragga day traders iyo waxaasaa isticmaala moving average iyo bilaayo kale iyo waxaana la garanay moogta anyway that's the chart halkan ka akhrista markaasi waxay isla leeyihiin kan moving average maxay I don't understand moving average maxaa la dhahdaa I don't even know waxa la dhahdaa maxaa la dhahdaa moving average MACD indicator moving average convergence divergence waa la inaqaad waxaase ya waa iska day trader kuwana kale way naga aqoon fiican yihiin way naga aqoon badan yihiin way garanayaan laakiin way naga aqoon fiican ma yihiin dad faa'iida allahu aclam waxaa dhici karta inay khasaaraan waa traders anyway waxaa is weydaarsanayaan okay iyo ninkana muxuu akrinaya kan waan yar arkay isagee devenchi mid la yidhaahdo waa iska yar okay next one inakan wuxuu yidhi isagu pagekii not responding kan wuxuu yidhi waa bubble waxay ka dhigan tahay waa biiq bugsantay and you just need a bit of a needle qarxaysaa marka waa xaween suuqan waa been way dhici karta it's possible never know okay waxa kale waa iska riwaayad anyway kelmaddan waxa la rockpooling waxa la waxaa lagu sameynaya suuqa lagu diyaariyay waad iibsani markaad iibsatid suuqii maba jiraba waxaa markaa kugu hadhown adigoo fadhamarnaan waxyaaba la isticmaalo suuqa okay that's the recommendation number 4 inshallah bila karim I hope inuu ahaan the last one kana waxaa jirta GameStop qoladan waa stock caadiga dadka iibsanaya waan ka fajacay GameStop what the heck GME share GME shantii cisho ugu dambeysay aduu 130 buu sare u kacay inkastoo maanta 7 hoos u dhacay maanta marka game kan waxaan recommendations in halkan ka akhrista dagaalka ka jira adduunka Google un taabsada waxaa tiri Wall Street Bets kaasuu ku qora Google-kii aan ku qora waxaa la dhahaa halkan Reddit waa page kale adduunyanaha dadka isweydaarsadaan ku qoraan
waa kan halkan qoladan iyo waxaa dagaal isku jirta iyo iyo dadka adduunka Wall Street iyo London Stock Exchange iyo suuqan ugu kala gaarsado shararka iyo dadkan shicibka iyo dagaal isku wada marka waa dagaalkaasi yuu kani kow ka yahay GameStop saad u fahantiin waxa ka socdana waa halkan shararka kuwan xagee laga iibsadaa bankaaga account baa ka furan kartaa bankaaga weydiin kartaa ingiriiska waxaan u maleeyaa Halifax uu gadaa sharar amba qoladan interactive anu qoladan baan ogaa shararka haysta interactive baad ka furan kartaa markaa sharar baad ka iibsan kartaa iyadan transactionku waxa weeyaan markaad halkii markii mar share ba iibsatidba adu 9 gini bay kaa qaadayaan khidmada okay so I hope maanta intaasuu ku eegyahay yaroo hordhaca isbarasho iyo xoogaa dhowr recommendation insha allah waa sii wadana dambalo suuqa wixii kusoo birbira bilahi tawfiiq